maanta ay taariikhdu tahay Oktoobar 30 2019 xafiiska xeelaalinta guud wuxuu shirkan jaraa'id u qabtay xafiiska ku-xigeenka xeelaaliyaha guud isagoo fulinaya amarka xeelaaliyaha guud ee dowladda Puntland oo ah dhaqaajin dacwad ciqaab ah si waafaqsan qodobka 12aad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed ayaa xafiiska ku-xigeenka xeelaaliyaha guud wuxuu qoraal u qoray gudoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland qoraalkaasoo si official ah aan ugu gudbinay baarlamaanka xogeynta guud ee xafiiska xeelaalinta guudna ay qaaday u geysay qoraalka isaga wuxuu ahaa dembi baa dhacay waajibaadka shaqo xafiiska xeelaalintuna waxay tahay in uu dhaqaajiyo xadgudub qaanuuni ah marka uu jiro waxa kaloo ka mid ah waajibaadka xafiiska xeelaalinta guud inuu dacwad ku soo oogo haddii lagu xadgudbo qawaaniinta iyo dastuurka iyo shareecadda islaamka saraakiisha sarsare ee dowladda haddaba 26 bishan hadda aanu ku jirno Oktoobar oo ahayd maalintii la furayay kalfadhigii 45aad ee golaha wakiilada kulankaas waxaa hadallo qadaf ah oo su'aalo loo ekeysiiyey ka soo jeediyey xildhibaan Cawil Xasan Daad isagoo u soo jeediyey golaha xukuumadda ee dowladda Puntland su'aalaha loo ekeysiiyey waxa ay ku xadgudbayeen ama ay qodobka 64aad ee dastuurka dowladda Puntland siiba farqadiisa 6aad sidaas oo kale qodobka 269 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed qodobka 215 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed qodobka 219 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed qodobka 220aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed sidaas oo kale qodobka 19aad ee xeer hoosaadka golaha wakiilada qodobka 23aad ee xeer hoosaadka golaha wakiilada dowladda Puntland qodobka 24aad ee xeer hoosaadka golaha wakiilada dowladda Puntland qodobka 26aad ee xeer hoosaadka golaha wakiilada dowladda Puntland qodobka 28aad ee xeer hoosaadka golaha wakiilada Puntland haddaba qoraalkaasi wuxuu ahaa mid xafiiska xeelaalinta uu ku codsanayay in xasaanadda laga qaado xildhibaan Cawil Xasan Daad si dacwad ciqaab ah loogu soo oogo xadgudubka dastuuriga ah iyo qawaaniinta kale uu ku xadgudbay haddaba qoraalka isaga xafiiska xeelaalinta wuxuu u gudbiyay baarlamaanka xildhibaanku wuxuu leeyahay xasaanadaasna ilaa laga qaado oo golaha wakiiladu ay ka qaadaan dacwad ciqaaba laguma soo oogi karo waayo xasaanadu waa xil sharafeed haddaba xafiiska xeelaalinta guud wuxuu ka codsaday golaha wakiilada
inay xasaanadda ka qaadaan una oggolaadaan xildhibaanka in xadgudubka dastuuriga ah iyo qaanuuniga uu sameeyey sidii aanu ugu oogi lahayn una horgeyn lahayn maxkamadda ikhtisaaska u leh. ilaa iyo haddana waxaan jawaab ka sugaynaa golaha wakiilada. golaha wakiiladu hadday oggolaadaanna xafiiska xeerlaalinta guud wuxuu dhaqaajinayaa dacwaddii ciqaabteed. ilaa golaha wakiiladu ay ka soo jawaabaan, xafiiska xeerlaalintu ma dhaqaajin karo, xildhibaankana kuma soo oogi karo dacwad ciqaaba, waayo waa arrin dastuuri ah. xafiiska xeerlaalinta guud wuxuu u hoggaansan yahay sharciga keliya. inkastoo uu ka tirsan yahay golaha garsoorka, maamul ahaan buu uga tirsan yahay, laakiin shaqo ahaan waa mid hoos yimaada qawaaniinta dastuurka iyo qawaaniinta dalka u degsan. isla markaana wax allaale wixii faldembiyeed gala oo ku xadgudba nidaamka dalka u degsanna inuu dacwad ciqaaba ku soo oogo. wabilaahi towfiiq.